soo dhawaada asxaabtayda qaaliga ah channelkeena Ufano Technology anigu Cabdullaahi Daacada maanta waxaan wadaa cashar ku saabsan si yar oo fudud ma ugu hagaajin kartaa mobilkaaga fiidiyowga ama video editing mobilkaaga ku samayn kartaa jawaabtu waa haa. waxaynu adeegsanaynaa program way badan yihiin programyada loo adeegsado video editingka, laakiin waxaynu adeegsanaynaa mid ka fudud oo loo yaqaano VN halka inaga muuqda. Programkaas ayaynu adeegsanaynaa description-ka hoose ayaan idin dhigayaa linkigiisa, halkaas ayaad kala soo degaysaan ciddii u baahan. Programka markaynu ku dhufano aan dhex galno sidan ayuu inoogu soo baxayaa. ugu horreyn waxaan tegaynaa meesha aynu rabno inaynu ku soo gelino waxaynu hagaajiyaynay hadduu ahaa sawiraan iyo hadduu ahaa fiidiyowga. waxaynu ku dhufaanaa halkan ku xigto home-ka pluska yar ayaynu ku dhufaanaa, kabacdi waxaynu sii dooranaa new project ayaynu sii dooranaa. sidaas markuu inoogu soo baxo waxaa inoo soo baxaya qayb ay ku jiraan fiidiyowada mobilkaaga iyo qaybta ay ku jiraan photos ama sawiraanta. kabacdi wixii sawiraana halkan baad ka dooranaysaa, wixii fiidiyow ahna halkan baad ka dooranaysaa. kabacdi tigta yar ayaad taabanaysaa, waa ujeedaa wuu inoo soo geliyey. markaa waxaynu sir dul taagaynaa featureskan guud. halkaa waxaa kaaga muuqda trackiska ugu sarreeya waa halkii aad kasoo gelinaysay codadka, halkana waa halkaad kasoo gelinaysay titlena waa halkaad kasoo gelinaysay qoraalada, iyo halka sawiraanta kasoo gelinaysay, halka fiidiyowada kasoo gelinaysay. halkan hoosena waad ujeedaa waa dhammaan waxyaalihii aad u baahnayd, hadday yihiin crop iyo hadday yihiin delete, hadday yihiin effects, hadday yihiin split-kii oo ahaa maqaskii lagu jarjarayay. dhammaan waxaasoo dhan ayaad halkan ka helaysaa. markaa tusaale ahaan markaad doonaysa inaad fiidiyow aad jarjartid oo kale, sidee ayaad u jarjaraysaa? fiidiyowgii ayaad dooranaysaa, kabacdina split-kaas ayaa dhex dhigaysa oo maqaska ah. si yar oo fudud waxa inoo jaray. dabtan qaybta aanad u baahnayn ayaad iska saaraysaa, delete ayaad dhahaysaa. taasi waa intaa. mar labaadka sidee ayaad laba sawir oo kale sidee ayaad ugu dhaxaysiinaysaa effects? iminka labadaas sawir ayaynu doonaynaa inaynu effects aynu dhaxaysiino. ka dambe ayaad dooranaysaa, kabacdina effectskaas ayaad taabanaysaa. waa kuwa wax badan ayaa ku jira. tusaale ahaan kaas oo kale ayaad doortay, kabacdina sax ayaad dhahaysaa. waad ujeedaa markaynu daarno ka kale sidaas ayuu kusoo gelaya effectska. qodobka kale aan doonaya inaan isdul taago waxa weeyaan inaynu cod saarno ama cod sidee ayaad usoo gelin karaysaa. sidaynu sheegnay trackiskaas sare ayuu leeyahay isagu. trackiskaas ayaad taabanaysaa, kabacdi music ayaad dooranaysaa. halkan waxaad kasoo gelin kartaa kuwa mobilkaaga ku jira my music, halkana qaar kale oo isagu siinayo 3 qaybood oo kale waad la soo degaysid, kabacdina aad ku apply garaynaysid fiidiyowgaaga. tusaale ahaan kaas oo kale ayaan dooranayaa, choose ayaad dhahaysaa, kabacdina sax. waad ujeedaa fiidiyowgii marka cod baynu saarnay.
waxaynu ku sii xigsiinaynaa inaynu qoraal aynu ku qorno. isna wuxuu leeyahay taraagiska labaad, isaga ayaa dooranaysaa. kabacdi qoraaladan ayaa kusoo baxaya, kaa doontay ayaa dooranaysa. tusaale ahaan waxaa dooranaya kaa labaad. kabacdi halkaas ayaad doonaysa inaad title aad ku qortid oo kale. description-kana waxaad leedahay halkan farti ayaad kasii bedeli kartaa nooca doonaysay. midabkana halkan baad ka siinaysaa casaan iyo sidaan leeyahay. kabacdi wakaa hadaynu iminka daarno soo qaadi karta meelaha igu beeg. qoraalna sidaas ayaynu ku saarnay videoga. waxyaalaha kale muhiimka waxa weeyaan waa sidaad ugu samayn lahayd crop. kii hore spirit waa sida loo jarjaro, kana waa crop. sawirkaas sida aad usoo crop gareyn kartid. halkan iminka originalkiisii uu taagan yahay. featureskan kale ayuu ku siinaya. kow waa haddii aad u adeegsanayso uu ku leeyahay YouTube, sidan ayuu kugu soo baxayaa. Snapchat sidan ayuu kugu soo baxayaa. kana waa isagii un. sidoo kale haddaad u adeegsanaysid TikTok saas ayuu kugu crop gareynaya. markaa kan ayaan dooranay. halkanna waxa weeyaan waa zoom iyo forward. markaa zoomka waxa weeyaan waa inaad sawirkaad soo dhaweyn kartid oo kale. zoom in haddaan idhaahdo imika sidan oo kale ayaa laygu soo dhaweynaya. zoom outna marka aynu daarno waad aragtay sawirkiinu soo dhawaanayo. zoom ayaynu saarnay. asxaabtii ma rabo inaan sii dheerayo casharka, wixii kale idinka ayaa sii baadhanaya. wixii su-aalana commentiga ayaad igu reebeysaan aad ka garan weydaan programkan. haddaba qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan sidee ayaad usoo saaraysaa videoga ama aad u save garaynaysaa ama video caadiya jira aad uga dhigaysaa. waxaad taabanaysaa halka ay ku qoranto export. kabacdi halkan ba resolutionka ama nooca aad doonaysid inuu noqdo halkan ayaad ka dooranaysaa. 720 ayaad doortay. halkan waad ka dhigin kartaa. halkanna high ama low ayaad ka dhigaysaa. kabacdina waad save ayaa dhahaysaa. sidaas ayaa videogii lagu soo saarayaa. asxaabta subscribe noo saara, siina faafiya videoga. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.